الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد كلمة أنا أنكوها الرأيو وحكاها بونيد موضوع عددك كان يني قيحان وحي وجهدان لكن سيان كوران كو بربورين بأمرك يكون دقين بان يالي دور مثلا كهالليا دور يتمنى حديث نوان كيني دون هديان الله يرى وقتك يا قاون وحن شعر الموضوع ستوسين أنو أباره وانا أغور وريقين afar arrimood baan xasuusinayaa dadka goobta joogiya garabka kalaba kow hadii mas'ala la isku qabto kitaab iyo sunniyo ijmaac baynu ku kala bixi karnaa waxaan keenayaa waxa ballana aayad xadiis iyo ijmaac inaan keeno anigu mas'alada labaad laba nasaday yimaadaan mid caam iyo mid khaasa naska khaaska hadiya goor xukum kale waana qaacida muqarrara cilmiyan on dood geli karin mas'alada saddexaad qofku aan ka hadlaynay waa xukunka islaam ee daahirka ma qaadanaya aakhira ma badbaadaya mas'ala kala way mas'alada afraad ee baraarujinaya waxa weeye qof islaam u sugnaaday kadib haduu buriyo waa baab kale oo nawaaqid la yiraahdo oo laga yaabo masaa'ilka dambe inay ku timaado qofka ashahaatay islaam ma noqonaya anu waxaan qabaa waxaan leeyahay ijmaacan wa nassan way masaladana waa badahiyaad aan muran iyo dood aqbalin way masaladaas warkayga waan cadeen marka masalada koowaad waxaan iri mas'aladan waa nas iyo ijmaac nusuusta waa qaybin doonaaye ijmaacana dib baan ka sheegi doonaa nusuusta waxaa kamida imaam muslim wuxuu ku wariyay fi saxiixi min xadiith abi hurayrata radiyallahu anhu wa ardaa inuu adeerkii oo sakaraada u yimid wuxuu yiri adeerow qul laa ilaaha illa allah dheh ilaahay agtiisaan kaaga markhaati kacayaaye qof sakaraatul mawd hayo shahaadada loo qabtay qiimo ma laha haddii aan lagumana doodi karo haddaanay shahaadu waxba taraynin laba waxaa nabigeena ka soo caysan xadiidka Anas ibn Malik imaamu al-Bukhari wariyay wiil yaroo yuhuuda u adeegi jiray buu nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo sakaraatul mawd hayo markaasuu wuxuu yidhi aslim war islaam wiilkii aabihii buu eegay aabihii baa wuxuu yidhi atic abalqaasim warkiisa yeel ninkii waa islaamay waana geeriyooday nabigoo faraxsan baa soo baxay oo leh alxamdulillahi alladii anqadahu bi min annaar wax kale ma samaynay kaliya wuu ashahaatay ninkan nabiguna waa ku farxay nabiguna islaam buu yidhi saddex waxaa imaamu muslim wariyey min xadiidi mucaawiyat alxakami sulami in uu gabar addoon ahayd oo madoobay oo uu lahaa u dharbaaxay ari intuu dhurwaaya wax ka cunay kadib nabigu uu canaanto arrintii ku adkeeyey uu yidhi rasuulka ilaahay waan xoraynayaa iigu yeer buu yidhi ilaahay xaggee jiraa kor buu jiraa anu maxaan ahay rasuulka ilaahay wuxuu yidhi xoree mu'minad weeye waxaa xadiidkaa lamida xadiidkii shariid bin suwayd athaqafi ee xasanka ahaa ee imaamu axmed iyo abu daawud iyo nasaa'i ay warinayeen xadiidkaa ninkaa wuxuu leeyahay hooyaday waxay dardaarantay inaan raqabo mu'minaa ka xoreeyo anigana addoontan madow ee nuubiyada abaan haystaa ma ka gudaysaa iigu yeer buu yidhi wuxuu yidhi man rabbuka rabbigaa waaya waa allah bay tiri waman ana anugu maxaan ahay rasuulka ilaahay actiqaa fa inahaa mu'mina mu'minad weeye xore buu wax kale ma weydiin wax kale ma dhicin shahaadadiibuu islaam saddexdaaba nabigu ugu qiray calayhi salaatu wasalaam nusuusta inta kale masaa'il kale on ka hadlayaanu dibdhigayaa ama ijmaaca qofka shahaadateynka ku dhawaaqaay waxaa soo guuriyey alxaafid ibn lmundir waxaa soo guuriyey alimaamu nawowi waxaa soo guuriyey asheekh alislaam ibnu taymiya waxaa soo guuriyey alxaafid ibn rajab alxambali haddii waan akhriyi doonaa kelimadeeda gabagabeeda afartoodaba kutubtoodii waan hayaa waana kala baxsan tahay waa ijmaac mas'aladaasi aan muran geli karin oo qaarkood ay yidhaahdeen macluum min addiini bidaruura weeye masalada inay saas tahay laba masalada saddexaad intii sheegay waxaa weeye qofku hadduu shahaadateynka ku dhawaaqo waxaa loo qirayaa inuu muslim yahay xataa hadday astaamo muuqdaan inayna daacad ka ahayn astaan hadday muuqato oo calaamado la arkayo oo tuhunuu jiray inayna daacad ka ahayn ee dan kale leeyahay xukmu lmuslimi daahir baa la siinayaa laba xadiid baan keenaya oo labadaba saxiixaynka ku yaallaan xadiidka koobaad sheekhaynku waxay ka wariyeen miqdaad bin al-aswad radiyallahu anhu wa ardaa inuu rasuulka ilaahay haddaan gaala la dagaalamo oo uu gacanta igooyo oo uu geedigaga cararo oo uu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo ma dili karaa markaasaa xal yidhi maya wuxuu gacanta igooyey buu ku cararay geede ma dili kartid baa layidhi haddaad disho booskaaga oo macsuumu dami weeye adna booskiisiibaa tegi oo nin muslim nin dilay oo loo qisaasayaa noqon waa ninkii dagaal ku jiray gacanta geed ku cararay
xadiidka labaad Bukhari iyo Muslim baa wariyo waa Usama ibn Zayd radiyallahu anhu warda dagaalkii la galay ninkii muslimiinta dhameeyay saaf markuu la dul istaagay la ilaaha illa Allah yiri madaxu jaray nabiga markii loo sheegay asalaam wuxuu yiri ma isagoo ashahaatay baa dishay ashahaada seedeeli aakhiro laba eray waa ka soo baxay ninka la yiraahdo Usama rasuulka ilaahay uu hofku seeftu ka cabsanaya daacad kama ahayn buu marna wuxuu rasuulka ilaahay uu ku badbaado buu rabay wuxuu qalbigiisa maxaa u jeexi weeyay ninka dagaalka ku jiray waxa dhiigiisa macsuub ku noqday wax kala ma aha waa shahaadateynka uu qiray oo ku dhawaaqay xukmul muslim oo macsuum dama lagu siiyay masalada saddexaad afraad aan rabaa inaan tilmaamo waxa weeye maadaama waqtigu yar yahay qofku hadduu shahaadateynka ku dhawaaqo oo xataa uu ku dhawaaqi sixi waayo eraygii uu kari waayo oo uusan aqoonba si loogu dhawaaqo laakiin eray ka cabiraya oo macnihiisu inuu islaama uu doonaya hadduu yiraahdo xukm muslim baa la siinaya in shahaadateen wada saxiix iska daaye imaam al-bukhari fi sahihi min hadith ibn umar wuxuu wariyay qaswadii bani judayma lagu laayay markuu khalid ibn al-jayshkiisu yimaadeen waxay kari waayeen inay yiraahdaan aslamna hatta aslamna waa garan waayeen markaas waxay leeyeen sabana waxay carabta ka maqli jireen maxamed iyo qolada raacday saba u way leexdeen markay say islaamaan garan waayeen beelan sabana waan leexanay diinta hore waa ka tagnay wallahi markii nabiga loo sheegay kaleey salaam wuxuu yiri allahumma abra'u ilayka min khalid dadka muslimka ee khalid uu la ilaahay ugu bari baan ka ahay kulama hatta shahaadadii waasixi waayeen laakiin eray macnaha laga fahmay inay islaamaan inay rabaan bay ku hadleen xukmul muslim oo macsuum la siiyay mas'ad waxa weeye qofku hadateynka ku dhawaaqo asagu ku sheega inaynan qalbigiisu ku deganayn oo uusan jacayl badan islaamka u haynin xukmul muslim baa la siinaya oo dhiigiisu macsuum buu noqonayaa waxaana ka sugan nabiga naxsan xadiidka imaam ahmed abu ya'la iyo غيرkoodba min xadiith anas ay ka wariyeen in nabiga caleesa nabiga nin u yimid wuxuu yiri aslim wariyo islaam ninkii wuxuu yiri ajiduni kaarihan laabtayda iyo naftayda islaamnimada way diidanta nabigu wuxuu yiri aslim way kunta kaarihan adoo nacaya iska islaam adoo xadaado ay nacayso way kunta kaarihan waana ka aqbalay nabigu sallallahu alayhi wasallam waana xadiis saxiix oo silsilatu al-hadith saxiixa kun nafar boo konton iyo afar ka raadi takhriijkiisa ninkii erayga sixi waayay iyo ninkii waa raali ugu mihi jiri labadaba shahaadateynka markay ku dhawaaqo islaam daahir baa la siiyay masalada lixaad qofku hadduu shahaadateynka ku dhawaaqo arkaanta iyo acmaasha islaamka kalena hal uusan ka aqoon islaamka waxay ibn maajah حاكم الضياء في المختارة البيهقي في شعب الإيمان من حديث حذيفة بن اليمان كوريين النبي عليه السلام في الإسلام كوا دوغو بدونا إلى ضدك أي قرن ويان الصوم محيهي صلاة محيتهي صدقة محيتهي حج محيتهي لما يقال ويلك الرقي يدمر كا وحيده دونا آباهي وحان كم مقرد لا إله إلا الله أنو يدي بعده انت مركو حذيفة وريه أرضي كوريني صلة بن زفر هذا صدح تيركو عليي ويغون صون يا صلاة يا صدقية حج من ذا قرنين لا إله إلا الله محيو تري تقصوا تشيسوا تنجيهم من النار نار بكبد بعدين إيسا وشهادتين صون ما يقان صلاة ما يقان زكاة ما يقان صدقة ما مقل حج ما مقل لا إله إلا الله وآبيه كسو قاري وحكا لما هيو هذا نوى ينفع لي وحكرا مسألة ذا تضوات قفكو هدو الشهادتين ككل واقو أو شرط كدغا إنه سن فرائض كإسلام كقاركود لا إيمانين إسلام بالله حكم إياه مسألة على النص وي eraygan iraahdo nas baan dul saari doonaa hadduu qofku yiraahdo waan islaami oo waan ashhaadan bishardi inaan arkaanta islaamka qaarkeed say tahay ula imanaynin nabigu xukmul islaam buu siiyay daahirkiisa saddex xadiis baa idin keenay xadiiska koobaadi nin baa nabiga shardi kula galay shanta salaadood laba kaliya isaga inuu tukado oo saddex kale lagu yeelanin inuu saara ku islaamo nabiguna waa ka aqbalo ku islaam buu yiri xadiiska waxa wari imaam ahmed ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني حديث النصر بن عاصم الليثي وحيرين أننا نجمده فالنبي أوجب صلى الله عليه وآله وسلم مركاسه وحكو إسلامي إنه تكذا الله بالصلاة وتكليه رواية فافاسا وحيلا داعي شن صلاة ومرك الله شيء يقول مايا أو قاد أنا مشغول باني ما تكون كرو